waxaan jeclahay in haddii la yiraahdo kulli dhalinyaradu mawduucan waxa laga yaabaa inay aad u xiiseynayaan insha Allah intii suurtagal ah ayaynu gudageli doonaa halkan waxaa marti ku ah barnaamijkan oo qayb weyn ka qaadan doona محمد إبراهيم ورسام الخاوي أحمد سليمان بيدة صعب خلاص ومحمد شامع عكاي ويمكن بلاد فلسطين وحا كتيرا آدم تربي شامع وحا كتيرا ويسمنا القريب كقاضنا maraadayaashin baan xaadiriyeen halabuurka da'da yar ee iyaguna xaq u leeyahay xilliga ninka la yiraahdo maxamuud saleebaan xirsi oo ku magac dheer waraabe waxa kale oo kamid ah maxamed cali cartan ninka la yiraahdo oo haldeed isaguna ku magac dheer waa ninkan halkan taagan haddaad kursi ku soo caawisaan dee way fiican tahay xabad kursi waa maranaya waa taagan yahay والله مهضقنا عند كرسي خصوصا نبوك وما تنتهي هذا وما تنتهي والله كان وحد لا يهي وحد غيابا وحاسو تقرا إن قف كستا ومركا موضوع عن تعايف اللي هذا لقاها ضيو لو ما قاعد رأي هرقيسة يوم هرينكي تعايف إنه دليل هذا الحيسي سوء قف كستا سؤال سيكوني وجمودا مش ليه هاي هالأبونا ويدي وانقرن كريا ولينا لكن موضوع عن لقاها اللي يا أبونا ده رقم اللي ركب ضلوا كم ده وسؤال ووضعي القوة وحن سكدي أنتي أول دواء سامح له إن أن بروح كوي دياني ودوينها متريا سؤاله عندي على يلاهو وحين يكون جاري كله لكن marka ugu horeysa waxa aan doonayaa in mid kasta aan fikradiisa barada aynu wax ka weydiino jacaylka laftirkiisu bal waxa uu yahay marka jacayl laftirkiisu wuxuu yahay waa laga yaabaa inay daayarto isweydiiso baradaano kooraha ka soo bilaabaya waxaan iska codsanayaa inaad buuqa yareysaan inaad si buuqa yareystaan إن شاء الله waxaan ku soo bilaabayaa kooraha galbeed maxamed jaamac kayd ayaan ku horeysiinaya su-aashan marka hore maxamedow jacaylka laftiisa ororta waa maxay maxay ku qeexi karnaa maxay loo odhan karnaa halkee bay loo qaadi karnaa maxamed fadal bismillah salaan kadib wuu iga nixiyey xasan maan filayn inuu aniga igu bilaabayo waayo ruud halkan fadhfadhida oo jacaylku intaa ka soo reebay ayaa ii muuqanaysay calaa kulli xaal jacaylku horta dee waa jacayl waa wada garanaynaa waanu fara badan yahay oo noocyo badan yahay waxaynu ka soo bilaabaynaa ka ilaahay iyo rusushii jacayl oo dhammina halkaasuu u noqonaya wax kasta uu soo gaadhayna wanaag iyo xumaan bay leeyihiin laakiin iskamana xumaadaan iskamana wacnaadaan weliba waxa aynu ognahay in ay wax waliba wanaagga ku yimaadaan intooda badan laakiin la xumayn karo iyagu ma xumaa ee waa la xumayn karaa marka jacaylka halkaa markaynu ka soo bilowno ee aynu ku soo sinno ka aynu ku wada noolahay inta u dhaxaysa oo aan caawa iyo habeenno kaloo badan haddii keligay laydaayo aynaan dhammayn karin
jacaylku waa jacayl ayaan ku bilaabay kula joojinaya waa mahadsantahay وهجاك وعشان هاي بلدا كيد بوها كاسحان شامع كيد آدم تربي شامع وعلينا على جسمه كله كيد كل حاجة بلدا مكتوب كواحد يجيب لنا آدم تربي حيوم بيجسد لنا الآدم وحده إنه وش هيجو تعال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعال وحن وحن كلنا نعمل تعال لكنه عيب بدن إنه إسلام أهان قبل تعال كهمرنا سيدا كي بحثت عبتي اللي ينبي تعال بعد وحده لا إله إلا الله بيدس تعالى وحده وما كان إسلام كنا هذا كان يقول تعال كلام هذا يقول لي كمان بو كلام هناك بو كلام يقول لي كم تعال دور تعال حولا تعال دار تعال لكن تعال يعني مو غير سبيل لكن هذا القصة نقوله تنمانتا إنه أينو وهاي سنو تعال كرسم جاء وهو سكو صورو رجع تعال كإنه أينو نقعنا دونيس وواحد دونيس وينا ومحاد دونيس يا أنتم دونيس ده صاع واحد ربطواه ربيتان ورد ربيتان مربو حدان جريايو أنت على كبور يسمى تريتان على كبور يدري وعلى سنة ولا مو كلفية وتعالى نسوي بيسكع يسوي تعال بيتهم نتاع نبض هو تعال هنا مركز نقص نقول تعال وحسب صورة النصب وحسب صورة النصب وحنا سمينا اللي هذول يسقوا صوروا ريا إنه واحد دينه ما أقدر إلا دينه ما أقدر نسميه أبو يسقوا صوروا ريا شعير ما كان عنده كل يبار صوروا ريا أو كوش على إنسان دين وين الدين نكوش على إنسان هذا وين الدقة نكوش على إنسان هذا ويا سوكو أنت أصلا كوش يكون يعني بالعرب الويا آدم تربي أيها قاسين waxaan jeclahay in aan dhinaca dhalinyarada u gudbo oo rubucadaaga xagga dambe mariyo haddii aan la yidhaahdo iga raalli ahaada waxaan u gudbinayaa ninka dhalinyarada ee la yidhahdo magaciisa maxamed cali cartan oo munaasha ugu xiga rubucadaagu waa kee waa iyo erayga jacayl iyada oo dee odayaashu waawanay joogaan kana ayga leeyihiin haddana haddaan ra'yigayga cabiro waxaan odhan kari lahaa diiniyaynu geli mayno wayna looga cilmi badan arrimo kalena u geli mayno laakiin anagu jacaylka halkan aan isugu nime caawaya caweyska ku saabsan waxaan ku cabiri lahaa golaha dhallinyaradu kulax la barato salaam وهجاك حمود سليمان أو كم قعدين ورابه حمود سليمان حسوا ورابه وحفليا مرا ورابه يشعر كمان بيلد موضة قلان إلا عن ده نحن نحب نطهي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسب بعد ما يجي ورابه يشعركم وحبا يسمعها وحنسى كحصية كلية يضد الرقي bahalka u abtirin jiray ay joogaan oo fadhfadhiyaan anigu jacaylku dee wuxuu kala waaweyn oo kala yaryar oo fara badan oo noocyo badan ayaan ka soo qaadayaa waxaa aniga kulley igu dambeeyey marka jacaylka munaasabadan aynu fadhino aan jeclahay asalaamu calaykum waraxmatullah waayahay axmed saleebaan bidin aan ku xogsiiyo وياهي محمد بن وسام الغاوي
أنا سلقي سنة فضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس لقيسن إكستو على كيو إذا كقول جنوا كذا تيرو بشوا عجي وقلاي على كل أينو إسكوكو الموضوع تعالك لوجه ليه تعالك لك يدك بفضلكم تعالك إذا وحنوا لنا أسناب بينوا لنا عليه إذا معلي كأني تعالكوا روحوا عند بقولي wuxuu yidhi ninkii la tartamay raggii adduunka ee jacaylka imra'ul qays iyo ninkii cantaratu shadaad alcabsi abilfawaaris iyo ninkii tuunisiga ahaayee salawaad fahaykal xub siriye iyo ninkii la tartamay horta waa cilmi inaga sumad ama astaan inoogu ahee jacaylka wuxuu yidhi caashaqa haween waa horaa caadil soo rogay إلا الله بعد كذا رئيسا هلك واحد كذا رئيسا وقت قاعد بجعيل كهلاي إذا بجعيل سلا علم كأوعى بالرابع قلنا كأنه سكت دوام بلو عبيرتي marka aynu nidhaahno kale maaha jacaylkeenu ka hadlaynaa caawa waxa weeyaan dhulkaasuu ku fadhiyaa ragga iyo dumarka ilaahay wuu u abuuray markuu waa laba axadoo laysu abuuray oo jacaylku waa sababta labada qof isu keenaysa aynu kala qaado waa laba oo midna jacayl baa la yidhahdaa midna wax kalgacal baa la yidhaahdaayo كعامك عايم معنا ويسميها وكل قعدك لكن تعايق وكدوريست النفط مركا لبدا معنو كريه هاي تعايق العاوق هذا النواكل هذا تعايقهم كلها وكتعايقهم كلها اللي هذا الصومالي أبجرا على وحي إلى جوريين Soomaalidu saddex nooc ay ku magacawday jacaylka jacaylku waxay yidhaahdeen waa saddex waa jacayl wahad iyo jacayl wadle iyo jacayl wad horta saddexdaas u kala kacaa mararka qaarkoodna waxay yidhahdaan iyo jacayl la jeclo labadaas bay u kala qaadaan jacayl wahad waa ka maanta jira ee la yidhi jacaylku waa dabayl duufaansido oo dibnaa iyo saaran daymada waa ka degdeg ahoo qac iyo qabaasha laysku siinayaayo dabadeedna waaba balaq wey la soo warwareegi maayo jacaylka labaadna waxaa la yidhahdaa jacayl wadne wuxuu yahay jirku jirka jeclaan maaye waxaa isjeclaanaya labada ruux baa isjeclaanaya labada ruux maaha jasadka iyo jirka maaha ruuxa ama qalbiga jeclaanaya waxaa la yidhahdaa jacayl wadne oo qofkaa waxaad ku jeclaanaysaa haddaad gabar tahay iyo haddaad wiil tahayba haddaad gabar jeceshahay waxaad ku jeclaanaysaa qiimaha iyo raganimada ku jira nafteeda sabirkeeda
diirkeeda xishoodkeeda haddii ay ka dhigo sidan isaguna waa la mid kaa waxaa leedaha jacayl wadle jirku jirka duwa macaashaqtane qofkaas waxaad ku jeceshahay markaad u kuugashay muddo dheer ku qaadatay baratay ayaad ku jeclaanaysaa raganimada iyo qiimaha uu leeyahay jacaylka kale waxaa leedaha jacayl wadow waa kii cilmi dilay أدينا دقيسة بفضلكم إذا قد داية أنا سبيسنا في الله ليس هذا الكبار يرغبكم أدو هذا يوحى في عن إلا دقيستين تعيود أي بكشة كينا وحيا وانكبح حياة ربما ما ماشى فرديه عندي كبار بي هذا اللي ورجري إلهي نحرستي جناح كواري أكوارا يلا بعض رأيه ويسوق الشيء وحلا يقول لي تيرون تهاي furi la ayuu cilmi joogay kadibna way soo gashay waxay tiri furigiisii hadalkuu maqlayaa gabadha muu eegin markii ay wuxuu ku yiri imisaa doonaysa dabadda xagga luu jeesto furigiibuu soo qaado markii u dhiibayay ayuu indhaha qaca ku siiyey nabarkaa ku dhacay indhaha qalbigaa nabarka kusi ku dhacay nabarkaa culisa qalbiga ciddii ku dhufatay unbaa daweyn karti marka laanu jacayl wey waaba tan cilmi 12 sida sheekooyinku way iska badan yihiin wada qaadana wixii hunayo wixii beelahe waxaa caada ah please waxaa caada ah qofkaasi qofkaa nabarka ku dhuftay qofaan ahayn oo cajabinaya oo aqbalaya ma jirto dabeedna waxaaba ka soo qaadi inay run tahay oo gabdhaha la horkeenay 12 gabdhood oo weliba la yidhi markaa is hortaagtaa markii uu waayay hodan waayo hodan dhibbay u neersanay ninkii waa loo tegey waxaa lagu yidhi haddii ilaahay ka dhigo dhib baa u dhimanayaa oo waayo dee uu jeceliya dee jacaylku aniguba waxaan haddii ilaahay ka dhigo u doonayay kabacdi cilmi gabdhaha la horkeenay waxaa la yidhi bal haatan mida kala baxo daldan waxaa la yidhaahdaa garaadkii ninkii gabadha ay u doonadayna maxamed shabeene garaadkiisii ayaa carrigooda ka soo xuray 12 gabdhood oo xul ah marka waxaa la yidhahdaa 12 gabdhood oo ay dila ka dhigo baad qoyskii uu ka dhashay ayaa soo xurayba labaduba way jiraan dabeedna isagoo jiifa ayaa 12 gabdhood la soo hortaagay waxaa la yidhi markuu indhaha kala qaado buusooda qosolyaad ku dhufta intan ilaa halkan waa la qaawiyey dabeedna waa la toosiyey hadday qurxin baan leedahay oo lagu qaboobayo nin meel u caddahay meelka madow hadday qurxin baan leedahay oo lagu qaboobayo aniguba qadraan soo arkay iyo qaararkii hodan qosolkaa yaryare waa waxaa nagu qaldaysaan inaan bahay idin qatali qaliya laabtiina ku yidhi finally jacaylku markuu halka u hooseysa gaadho waa marka qofka magaciisu qofka jecel mashkalad ku noqdo cilmi wuxuu gaadhay in markuu hodan noqdo hadda gabar yaroo dariska ahoo loo yeerayo inuu soo boodo magacii hodan baa mashkalad ku noqday sida geel haraado wax badan hawdka lagu ooshay oo hana la soo joojiyey oo guraygu heegaayo oo hoobiyay loo tumay iyo hadal walwaaleedka kolkaa hodan tidhaahdaanba waa soo inqanayaaye xaggee nin haggii damba ah oo shalay dhowaan dhintay oo loodhan jiray maxamed cali kaari wuxuu jeclaaday gabadh loodhan jiray gabadh la yidhaahdo way nooshahay shankarood waa shankarood axmed yuusuf way nooshay isagana way ku magac dheer tahay heestuu tiriye wuxuu ku yidhi kuwa loogu magac daray muuqa aan la kala garan aku muhaashadoodiiyo heesaha macaaniyo buusigiiyo codkay dilay markuu magac la shankaroore hadda waa gabadh yar aaliyadii ahayd markaasaa bilaayo ugu horeysa marka
nabarkii cilbi ku dhacay inkastoo qaaliyaadaan gabadha buu guursadayo sheekadu iska badantay laakiin cilbi waxaynu un caawa qaadanaynaa qofkaa nabarka kugu dhuftay cidaan ahayn oo daweyn karaysaa ma jirto waa jacayl mudo nabarkii haddii aan la daweyna waa ka marka dambe geerida keen aduba horta iminka inaasan kaga baxay waxay loogu rigayaa axmed salamaan bide oo isaguna su-aashii ka jawaabiyo weli waxaynu daba soconaa weli aynu ku jirnaa waa su-aashii ahayd horta jacaylka marka axmed su-aashaas haddii aan la yidhaahdo si kooban uga jawaabo halkan waxaa aynu muxuuha ku haynaa su-aalo kale oo isla mawduucan oo halkan lagaga hadlayo ku saabsan qaar kolleyba aan uga fikirnaynay garanaysaa xiise leeyihiin su-aalahaasi halaburada halkan fadhiya laftirkooda waa qaar kuseeya waxaa muhiima in intii aad muxuuha dhalinyar ahaan ka faa'iidaysan kartaan idinkuna inaad ka faa'iidaysataan haddii aan la yidhaahdo iyaga qudhooda waxaan rajeynayay si qoto dheer noogaga jawaabi doonaan oo ay dhigo أحمد سلام تكسروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. horta waxaa la yidhi hadal dabadi iyo hilib dabadi haba dabadeed midna la isba taaga baa layidhi hase ahaatee rugcadaawa bay nagu sheegano inagoo rogmelaxaada ah ayaabay dusha galowga nagala boodeen markii horeba hase ahaatee ninka hadalkaa yidhi wuu naga yaryahay huwa inanka iyagiyo raalli baanu ka nahay haddaba jacaylka kelmadda la yidhaahdaa ma aha wax ku kooban inteenan mana aha wax ku kooban hargeysa caasimada somalilan mana aha wax ku kooban jadda soomaaliyeed waxa weeye kelmaddu kelmad ka dhaxaysa caalamka oo dhan ayay ka dhaxaysa caalamka intee ku nool xawayaanku wadallabo isu raaca marka ilaahay u abuuray noolaha adduunyada duldhigay jacaylku asalkiisu waa nolosha iyo taranta aadmiga nolosha iyo taranta aadmiga wey haddaan jacayl jirin nololi ma jirta haddii tarani aanu jacaylku guur lahayn oo aanu taranka yaryanina dadba ma jirin marka jacaylka asalkiisu waa wuxuu u biyo dhacaa waa taranta aadmiga wuxuu ka soo ungumay aadan iyo xaawa markii adduunyada labadooda oo qurayaha ay ku noolaayeen bal eeg adduunyada oo dhan waxaa ku noolaa laba qof aadan iyo xaawa 40 sannadood bay israadinayeen kolkaasay kulmeen ilaa amar baa ilaahay uga jeeday waa laga badiyaa xadiiska iyo qur-aanka iyo laakiin bawsiga waxaan xadiiska ku maqlay markii jannada laga saaray aadan iyo xaawa kadib bay ka baxdo iyadaa ka hor baxday kolkaasuu aadanna damca inuu ka daba baxo dabeedna malag baa hirka joog kaa kale ka baxa kii kale u ka baxay waa halkay ka timi mahmaahda la yidhaahdo laba geed dhex maray geed biyaal dhex maray anigayga way ku dhacdeen jannadun baanay ahaa jannadun baanay ahayne runtaa la isu qiraaye anigayga way ku dhacdeen horta su-aasha hore waxaan kaga baxayaa jacaylku waa taranta aadmiga haddii la sii sarrifana dee kayga haddaan dabada ka galo 41 riwaayadood baan sameeyey tii u dambaysay iminkaan dhammay 3 saacadood bay soconaysaa waxaa la yidhaahaa magaceeda dhoofka biimiya dhibta caashaqa oday yaroo tuurahoo la yidhaaho taajir tuuro dhiijiye ayaa inan dhalay inantaas wuwadba leeyahay dabeedna inan waxay damacday dhoofkan biimaha inay gasho ee dadka fajiirka ah saboolka ahi dhoofkan biimaha badaan uu isku tuurayo iyadoo dalxiis inay ku martaabay damacday markaasay inan saboola oo la yidhaahdo iyadoo waxaa la yidhahdaa tolmoon taajir tuuro dhiijiyaa la yidhahda أحمد حفلة يا سؤال شيء أنا مركب وراء كشوف لكن بلد الصوت قاعد يقول يلطم بيا الموضوع رجل جواب كمان قبلنا يرسل وحوي قلنا إلى الله يرهضه ثم نسبه
ayaa iyagu daraan baas ahaan dowladda u saaraysaa biima waxaa ku jirta weliba iyayda ku cunta dadka oo ilo si xun ugu cuntay soomaaliyeed sacra midka caashaqa iyo dhoofka biimaha 41 riwaayadooda aan sameeyey ayay ugu dambaysay waxay tahay 2 iyo 30 waan hubaa inaan babliga u dhigo sida raalli looga ahaaday dadka iyo waqtiguba way soo socdaan oo bandhigaloo kale maynu lahaan jirin kuwa soo qabaqaabshay iyo kuwa wax ka soo qabtay wagidigooda waanu mahadnaqayaa iyaga ilaahay waayo horumar weynu qoraysay bugaagta barbaartii maxay ahayd filaysay jaraadka kuwii tacliinta bugaagtii jaamacadaha dunida ay isu keenkeeneen iminka waxaynu nahay adduunyo dhan baynu nahay gidigeen waynagaa jacaylkii maraynaa jacaylku waa taranta aadami وهجاك waxaan jeclahay haddii aan la yidhaahdo inaan dhowr su-aalood dadweynaha rag iyo dumar maxamed jaamac kayd aadan tarabi harmaawi axmed saleebaan maxamuud saleebaan raabe iyo haldeer dhowr su-aalood baan xaggiina usoo wareejinayaa hadday jirto cidla cid qabta su-aal nin baa gacanta gooraha bataagayay waata badab istaag سؤاشا بسم الله الرحمن الرحيم وقت بيا الله يا هورتا ديكي عاوة بيرلو فديو باقول كتبه gabadha beerlula la yidhaahdo garan maayo caawa inay nooshahay horta inay dhimatay hadday dhimatay soo hadal allaha u naxariistu baa lagu soo hadal qaadaya hadday nooshahayna waa sodoho caawa in badka la keeno waa ka hadlo dooni maayo caawa iyo habeenna hore